بسم الله الرحمن الرحيم maantay taariikhdu tahay 6 bishii 12 2019 waxaan airportka ku soo dhaweynaynaa Heathrow Shatigol International Airport gudoomiyaha nin musharaxa u tartamaya jagada gudoomiyenimo ee xisbiga kulmiye mudane maxamuud xaashi cabdi halkan waxa garabkayga jooga gudoomiyaha jaaliyadda Faransiiska ee Somaliland waxa kale oo jooga mas'uul ka tirsan dhalinyarada jaaliyadda sida awgeed marka insha Allah wuxuu imanayaa daqiiqada kadib dhammaan jaaliyadii iyo dadkii oo dhan oo martidii waa u diyaar waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaaltinimo waxaan ku soo dhaweynaynaa isku duubniyo midnimo insha Allah hadalka waxa iga dambeynaya gudoomiyaha jaaliyadda isagaan hadalka ku soo dhaweynaya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa farxad weyn bay noo tahay maanta inaan halkan ku soo dhaweyno maxamuud xaashi oo noogu yimid magaalada Paris waxaan filayaa waa markii koowaad uu maxamuud xaashi noogu yimid magaalada Paris jaaliyadahan anagu caan baan ku nahay inaan soo dhaweyno qof kasta oo reer Soomaaliland qof kasta oo muxuu ama siyaasi ama qof kasta oo shacbiya farxad bay noo tahay inaan caawa halkan ku soo dhaweyno soo dhawo baan leenahay hadaan jaaliyadii reer Soomaaliland ee deganeed magaalada Paris nahay deewaan suuraysan doona aad baan ugu faraxsanahay imaantika ay noo imanayaan madaxda ay ka socota jamhuuriyadda Somaliland bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah waxa sharaf weyn oo ah maanta oo inaan ku soo dhaweyno musharaxa siyaasiga dhaqanyahanka maxamuud xaashi cabdi madaarka Paris maanta waxaan leenahay maxamuud ku soo dhawow wadanka Faransiiska guud ahaan iyo jaaliyadaba maxamuud xaashi runtii waa musharax xisbiga talada wadanka haya waa maayirkii hore waduqii hore gobolka magaalada Burco waa nin siyaasadda ka soo bilaabay halka ugu hooseysa ilaa iyo halka ugu sareysa waxaan leenahay maxamuud xaashi markale ku soo dhawow assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh waxaanu halkan caawa ku soo dhaweynaynaa siyaasiga weyn ee maxamuud xaashi cabdi oo ah siyaasi aad iyo aad u mug weyn ka tirsan Somaliland xisbiga kulmiye mudane maxamuud ku soo dhawow dalka Faransiiska magaalada madaxdiisa Paris International Airport Shatigol runtii bulsho aad u badan baa halkan caawa kugu diyaara annagoo ku hayna ixtiraam weyn iyo qadarin weyn iyo qiimaha weyn aad mudan tahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad ba mudane soo dhawow kuna soo dhawow Paris assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn ilaahay baan uga mahadnaqayaa inaan nabad qab halkan ku soo gaaray mar labaadka waxaan waxgaradka dhalinyarada iyo waayeelka qiimaha leh ee madashan igu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Paris waxaan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta niyad samida aad iyo aad baa mahadsantihiin intaa kadib waynu iswaraysan doonaa wixii hadal waa inoo dambeeyaa ugu dambeyn mar labaad aad baa mahadsantihiin adiga marka waa safrayna insha Allah taala